jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saaxiibadeyda kolleegiska golaha wasiirada ganacsatada qaybaha kala duwan ambassadorska qof kastaba maqaamka iyo magaca uu ku joogo inta kala ganacsatada iyo dhageystayaasha salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta marqaati ka nahay joogno arintan aad iyo aad ku weyn laga soo shaqeeyay oo ah madasha hindisaha dhismaha muqdishada cusub sidoo kalena lagu daahfurayo dhismaha airportka caalamiga ah ee muqdisho waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xukuumadda aan qaybta ka ahay ee dan qaran labada sano ee barka ay joogtay howlaha ay ka shaqeysay inay udub dhaxaad u ahaayeen in laga guuro wadankeena inuu noqdo wadan humanitarian iyo gargaarka ku salaysan oo loo guuro wadan horumar iyo fikrado waaweyn oo aan lagu dhiiri karin in loo guuro hogaankaasna waxa iska leh hogaanka madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aad maanta marqaati ka tihiin madaxweyne xasan sheekh markii dalka loo dhiibay 15 May 2022 xukuumadda cusub markii la sameeyay ra'iisul wasaare xamse soo magacaabay 2 bil gudahood in dalka amnigiisa iyo xurintiisa lagu dhaqaaqay taasoo suuragelinaysay in la fududeeyo amniga marka laga shaqeeyo ka bacdi fikradihii kala horumarineed in laga shaqeeyo oo dalka xureyntiisii amniyeenta xamar oo muqdisho isku furitaanka gobolada ay ogeydeen muqdisho ku furan deyn cafintii ku biiristii East African Community in lagu biiro arrimahaas oo waaweyn waxaa fududeeyay fikradaha aan laga gambanin ee dalka inuu ku dhaqaaqo ay tahay oo markasta meeshiinii hore inaan joogno oo laga guuro maanta waxaad marqaati ka eedeen airportka laga sheekeynayay ee Soomaaliya hadda intaas oo diyaarad ay ka soo degto ku dhiirinaantiisi markii lagu dhiirinayo dad badan oo culays ka qabay oo walwal ka qabay inaan la sameyn karin in lagu dhiiraday la dhisay la daafuray haddana arkaysaan in capacity-giisi oo aad iyo aad u yaraaday marka waxay marka tusaale u tahay arrimaha waaweynka ah ee mega projectska ee dalka ka bilaabanayo oo isbuucan marqaati ka ahaydeen arintii ahayd gateway-ga complexka oo 5-star hotel for the first time Soomaaliya in laga furo lagu soo dhiirado in dad ajnabi ah iyo dad Soomaali ganacsato ah lacagahooda isku darsadaan Soomaaliya labadii sano hadda aan joognay madaxweyne waxa dalka soo galay waxa la dhahaa maalgashiga shisheeye ama waxa la dhahaa foreign direct investment 2020kina 500 milyan baa soo gashay 2023 700 milyan ayaa soo gashay oo ay waliba xogta ay adduunyada naga qoreen waa lacagahaas deeta badan xog badan ka maqan oo ilaa ay bilyan gaarayso riboorka FDI-ga adduunyada ay ku soo baxday 700 milyan in 2023 soo baxday sanadkan aan ku jirnay in halkii bilyan hid gareynaan rabnaa mashaariicdan weyn iyo Soomaaliya in lagu soo dhiirado oo hotel 5-star brandiga standardkiisa aad ogtiin adduunyada qiimaha uu ku leeyahay inuu magaciisa keeno waxay tusaale u tahay Soomaaliya levelka iyo trajectory ay joogtay marqaati u tahay in 100 milyan oo lagu maalgashanayo la dhahay marka arrimahaas oo dhan marka guul waxay u tahay arrimaha horumarineed ee dalka Soomaaliya oo hiigsanayo waxaan aad iyo aad marka ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqono qof kasto Soomaaliyeed inuu fikirkan oo kala soo dhaweeyo madaxweyne waxaan rabaa inaan bogaadiyo ganacsatada Soomaaliyeed oo aad iyo aad ugu dhiirata markasta roolkoodina inay qaataan ayadoo waliba dawladda agabkii iyo dhameystirkii iyo enablerskii u baahnaayeen ay la daala dhacayso macnaha inay ayagana roolkooda ay ka soo baxeen oo ay maanta halkan ay wada joogaan ganacsatadii Nairobi inooga timid kuwii ka yimid qaybaha kala duwan oo kale Muqdisho oo sektarada kala duwan ku jira Djibouti madaxdii oo Sheekh Axmed iyo ay hogaaminayaan waa madal muggeeda iyo qiimaheeda iska leedahay ganacsatada marka annaga ka xukuumadda dan qaran ahaan hadda waxaan soo gabagabeynay qorshihii isbeddelka qaranka dawladdaana ama xukuumaddaana khaasatan dan qaran waa xukuumaddii ugu xoogganeed ee waqtiga ugu badan gelisay inay la partner garowdo empower garayso private sectorka Soomaaliya madaxweyne waxaan la kulannay inta aan wadnay qorshaha isbeddelka qaranka ganacsatada Soomaaliyeed oo hogaaminaya saaxiibkay Gabayre in ka badan 20 ilaa 30 mar oo aan isdhaxgelinayni dawladda wixii ka shaqeynay iyo private sectorka inay isku jiha aadaan si synergy-ga iyo maxaan ku dhahaa momentumka dalkeena horumarkiisa oo u jihoobo
arrintan hadda waxay fududeynaysaa waa arkayseen waa private sector-ka iyo public oo isla shaqaynayo marka aad iyo aadan u bogaadinayaa qof kasta oo rool ku lehna wasaaradaha kala duwan oo initiatives-kan qayb ka ah iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo tan loo furi doono public-ga inay qayb ku lahaadaan dhaqaalahan oo ay shareskaas ay wax ku lahaadaan kalsoonina in la geliyo si kalsoonina loo maalgeliyo dhaqaalaha ganacsatadana in si mug leh ay ugu qayb qaataan aad iyo aadan idinka mahadcelinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.